sharci darrada diidanahay anigu wax kale ma diidanayo. marka maxay tahay sharci darrada lagu dhaqaaqay? sharci darrada lagu dhaqaaqay waa dastuur jabintaas qodoba madaxweyne ku-xigeenku uu ku leeyahay oo dadkii maxay tahay dastuurka samaystay ay ku dhigeen oo ah in madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenku ay ka wada tashadaan hadda dastuurka dib u raacdo ee qodobka 8aad warqadiisa 5aad oo madaxweynuhu leeyahay qodobka 11aad oo dhan ama warqadiisa 2aad ay eegi kartaa. waxaad ula jeedaa dastuurka qeexaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inay ka wada tashadaan haddii magacaabid la samaynayo heer wasiir ah ama taliyayaal ah ama xilka laga qaadayo mas'uuliyiin. haddii xilka laga qaadayo haddii xil la siinayo heer wasiir iyo saraakiisha sare iyo wax allaale wixii digreeta ku soo baxa madaxweynuhu ku qoro markaan arkay qodobka 8aad wax allaale wixii qodobka 8aad ku soo baxa oo digreeta ah waxa ku ansaxaysa oo sharci ku noqonaysa markay ka wada tashadaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku. magacaabistii hadda u dambeysay wasiirada iyo kuwa xilka laga qaaday warqadii lagu magacaabay hortaalla sidan bayna u qoran tahay madaxweynuhu markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Puntland qodobkiisa 8aad markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo way aragnimadooda shaqo markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland oo adiga Axmed Karaash ah miyaanan lagu la tashanin Axmedow? adeer ma dhicin marxalad aanu ka wada tashano markaa xaalkayga hormooraysa ayaama xoogaa ma maqlaysa odayaasha way iskhilaafeen. waan maqlayay bal ma xaqiijin kartaa adiga ma jiray khilaafka muddoba? khilaafkaasi waa jiray khilaafkii annagoon ka wada hadlin oo isaga iman oo daaweyn miyaan wada tashan karnaa adaan kuu dhiibay. tan dambe haynoo dambayso ee magacaabistii dhowaanta khilaafkan hore maxaa sabab u ahaa? khilaafka hore waxa weeye wada tashi la'aan wax isweydiin la'aan madaxweynaha waa la doortay anna waa la doortay waana wada doortay waxaa nala wada doortay inaanu wada tashano wada maamulo aan kala badsaneeba oo dee madaxweynaha ahaado anna ku-xigeenkiisi aan ahaadee inaanu xoogaal u wada noqono waxa socda waxyaabo badan oo aan maxay tahay diidanahay way jiraan waxyaabo badan oo inaan anigu maxay tahay qabto oo la qabto madaxweynaha ahayd oo aanan qaban way jiraan marka way badan yihiin ma rabo anagu maxay tahay gudaha iyaga mooyaane inaan dibadda u saaro waxyaabaha aan kuu sheegay. Axmed Karaash laakiin waxaa la yiri khilaafku wuxuu ka bilowday markaad qoonsatay taliyayaal ciidanka madaxtooyada oo la kala bedelay soo wax sahlan ma ahan in askari lagu bedelo taa ma dhib bay leedahay? kaa qula maaha way sahlan tahay si markaad u eegto waxaan qoonsaday taliyaha madaxtooyadu waa meel naga dhaxaysa aan wada shaqo tagnaa wada joognaa wada maamulaa madaxweynuhu markuu wiilkiisii uu keensaday wiilkii anigoo aan keenayna uu meeshii ka eriyey marka de meel la isku hadlayn karaa maaha marka iyada qura ma ahayne waxyaaba ka horreeyey bay ahayd oo aan doonayay maxay tahay in arrinku uu dibadda usoo baxo mar haddii madaxweynuhu ka waantoogi waayey waxa sanad iyo markaas soconaya oo noocaas oo miran. marka idinkoon awalba isku fiicneen in warqadan sidaas loo qoro la yidhaahdo Axmed Karaash waa lala tashaday waa qalad baad leedahay? warta annaga aan basalaanta ba iska qaadin miyaan wada tashan karnaa adigu caqligaaga la kaaso. Axmed Karaash inkastood qodobo dastuura soo xiganayso in Puntland kuma cusbid xukuumadii Cabdiweli Gaas 5 sanaad la dhamaysatay 2 jeer baadna wasiir noqotay mar wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose xil culus wadahaysay hadda madaxweyne ku-xigeen baad 2 sano ku dhow tahay odayna waa tahay oo ninkii la rabay inuu gacmaha hoos u dhaqo waa adiga Saciid Cabdullaahi intaad u tagtay oo hoos ula hadashay ma tiri daadeer waxaan ka daa so many times timaaga ka badan haye muxuu ku yiri marka aniga ma ahaydyo kala u tagay adeerow meeshan ana madaxweyne ka ah buu yiri sidoo u dhaqmayana de waa u egtahay ma aduu kugu yiri Saciid kale aniga adigu sidaa kugu yiri ana meesha madaxweyne ka ah nacam hadda maxaad yeelay Axmedow hadda waxaan yeelayaa de oday baan haysaa adii sheegayso oday baan haysanad iyo barkaan odaytinimadaasaan wax ku soo waday waxaan dastuurka iyo sharcigaasaan ilaalinayaa kaasuma ku taagna